الرحيم مقعي وفرحان حسن كسو جيدا بيشا دارود gaar ahaan beesha dhulbaande gaar ahaan beesha Axmed Garaad waxaan ku xidhanahay jeelka weyn Hargeysa halkaas oo muddo 9 sanadood aan ku xidhanahay muddada 9 sanadood waxaan u xidhanahay mag 9 sanadood beesheeda waan la hadlayay Axmed Garaad magtaana inay iga bixiyaan waan ka waayay oo iga bixin waayeen sidaa darteed markaan 9 sano oo kamid ah umrigeyga aan ku dhameystay jeelka waxaan go'aansaday inaan fariinteyda gaarsiiyo dhammaan beelweynta daarood meel kasta joogaan dal iyo dibadba madaxdooda iyo maxaan ku raahdaa mudanayaashoodaba sidaa darteed waxaan ka codsanayaa beesha daarood cid kasta oo hadalkayga gaaro oo kamid ah inay ii soo gurmadaan magtaana iga bixiyaan waxaan ahay aabe 4 caruur leh qayb kamid ah caruurtooda waxay dhasheen intaan jeelka ku jiray mana aan nasiibna uma helin inaanu is aragno oo midowno nasiib ma helin sidaa darteed mudane iyo marwaba beesha beelweynta daarood waxaan ka codsanayaa inay magta iga soo bixiyaan si gaarana waxa weey waxaan leeyahay mudane iyo marwaba waxaan la hadlayaa magaca daaroode muddo badan in xiran baan oo moralkii jabay ma facmalaha aakhiro dadiyahu magaca reereed maanta aan inii baahanay mudanayaalow madoobiyo kale dani ku tahay oo mactuurahay mustafiyo farmaajan u diri muusana wada leh aad baan idin salaamayaa maadaama aan si public ah idin ka soo codsaday idinkoo beelweyntii daarooda